tartanka kubadda cagta ee u dhaxeeya kulliyadaha jaamacadda Eelo oo muddooyinkii ugu dambeeyay si habsami looga socday garoonka kubadda cagta ee magaalada Boorama ayaa si rasmi ah loo soo gabagabeeyay. Munaasabadda xiritaanka koobka ayaa waxaa ka soo qayb galay iskuduwaha wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada ee gobolka Awdal, maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Eelo, bahda ciyaaraha ee magaalada Boorama. Tartan ciyaareedkani ayaa ahaa mid uu soo qaban qaabiyay ururka midowga ardayda jaamacadda Eelo, waxaana ciyaartii kama dambaysteed iskugu soo baxay kooxaha ku kala ciyaaraya magacyada kulliyadaha engineerinka iyo diploma ICT, waxaana ay guusha ku raacday kooxdii ku ciyaaraysay diploma ICT. Furitaanka ciyaartan ayaa waxaa ka mid ahaa mas'uuliyiintii munaasabadaasi ka hadlay hadaladoodii. in si habsami leh wanaag leh nabdoon nimcaysan inoogu soo gabagabooto ciyaartan. Marka labaad waxaan jecelahay iyagana inaan u hambalyeeyo kooxdii koobka qaaday isboortigan ay soo socday ama ciyaarahan ay soo socdeen waqti dheer ay soo socdeen maantana waxaa insha Allah markaas ku loolamaya engineering oo ah sophomore iyo junior oo la isku daray iyo waxa kale ku loolamaya project IT-ga DIT-ga oo iyaguna markaas project management-ga oo iyaguna markaas ku loolamaya oo labada qaybood ee maanta finalkii jooga weeyaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sida ciyaarta u socoto hadda waxa ay hadda taagan tahay waxay ku dhowdahay waqtigii magarasa طبعا أنا كوسارة هان وحنا نوقف تيمة ترتان والبا ولا قبطين جامعة قبطان أما إسكولات ولا مدرسية سنة إن عن كده حاجة نقدر نرى أخلاق له أو فرصة دي عياراتنا كرمس تعاون معها كلي وحوي أنا بلقي بينا تقيب قادم وزيارات كرامك واحد خصوصا التمثيل مش إن مدحضو لا بيتهم فقط لو خصوصا التمثيل ما نحن ضمن كلمة الموضوع هذه كوكا waxay maamad waxay xaq u saarin xasan masriir rumaantii dad caafimaad qabo oo fayduusan oo aan dulad ahayn oo naqlab xumad ahayn ama kala mahadceliyay suurtageliyay howsha qabanay ama kala mahadceliyay dhammaan maamulka jaamacadda iyo ardayda gudaha jaamacadda oo si ballaaran way qaatay howlaha qabanayna waxaa sidoo kale aad mahadgaar ah u gudbinaya jaamacadda وشرحها الخير قانوني سي هالعنا ولا يقاطع والله كان عبد العزيز عبد الله شبكة عالمية بورما نيوز.